san horeyba u tilmaanay cuquubada ilaahay inaysan daahin baa laga yaabaa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam laba dambi cuquubadoodu ma daahdo ayadoo adduunka lagugu soo dadajinayo ayaa aakharana lagu kaydinaya labada loo soo qaadaray laakiin cuquubadaha soo degdega laba ugu khatarsan uguna soo degdeg badan waa labadee nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam qaraabo goysnimada iyo baqiyiga gardarrada inaad dadka gardaraysato iska maagto aflagaadayso xamato caydo ku xadgudubto cuquubadeedu ma daahdo in qaraabadaadi iyo eheladaadi iyo xigtadaada aad goysana cuquubadeedu ma daahdo aakhiraba lagu la sugi maayo adduunka in laga gooyo waa iyadoo aakhirana lagu la sugayo cuquubadu jirto ba hadana adduunkana soo degdegaysa marka is khatar isgelinina khatar inaan isgelinin waxa laga yaabaa in guriga laga galo waxa dhici karta in caafimaadka laga galo waxa dhici karta caruurta in laga galo waxa laga yaabaa ruux muslimood ku xadgudubtay maalin cuquubo ka dhalatay inay kula abtirsato oo gurigaaga gasho ee caruurtaada gasho ee caafimaadkaaga gasho oo adigoo dhan ay ku baabiiso adigana si fudud baad isaga hadashay si fudud baad u tiri cuquubada ka dhalatayna waxa laga yaabaa inay mustaqbalkaaga adduun iyo aakhiraba baabiiso oo khatar ku geliso sastaradeed waa mazalla waa meel halis waa meel khatar ah waa meel u baahan in aad looga taxadaro marka hal la taxadaro oo walaalayaal carabkeena aan ilaalino haddii mujtamacu uu noqdo mujtamac isxanta isxamashadaasi waxay kala dilaysaa mujtamacii waxay baabi'inaysaa walaalnimadii waxay baabi'inaysaa isjacaylkii waxay baabi'inaysaa midnimadii waxay baabi'inaysaa wada jirkii waxay abuuraysaa xiqdi iyo xasad iyo isnacayb iyo kala tag bay abuuraysaa waana mafasida adduunyada ku jirta ee dadka soo mujtamaca soo gaadhay kamid baynama wax weeye is-ixtiraamka isqadarinta dadka oo iska ilaaliso waxooda waxay abuurtaa ugu yaraan qulubto isu timaada in la isjeclaado midnimada walaalnimada soo dhawaanshaha ayaa macaani badan bay abuurtaa ruuxii iyo mujtamaca labadaba saas daradeed wixii ilaahay inaga reebay shar baa ku jira wixii ilaahay ila farayna khayr iyo maslaxa ku jirta aynu ku dadaalno insha Allah ta'ala in aynu dadku inaga nabad galaan haddaynu laba isku darsanno waa khasaaro la hubo waay in cibaadadaaduna yar tahay xantaadiya aflagaadadaaduna badan tahay bari haddaad ilaahay hortiisa tagto oo dadkii wax kugu lahaa yimaadaan oo cibaadadii loo qaybin lahaana aadan lahayn maxaa ku sugaya balaaluhu isweydii salaad quman ma haysid soon quman ma haysid sadaqa quman ma haysid iska galab baa tahay dhanka kalena sharkaaga iyo dhibkaaga badan maxaad sugaysaa marka maxaa ku sugaya xagee u socotaa waa khatar weyn xataa wixii dadka loo qaybin lahaa ku badbaadi lahayd ma haysid qat'an marka meeshaad ku socoto wax weeye in cadaab iyo naar aad ku dambayso waay marka walaalayaal mustaqbalkeena ayaan ku ciyaarin inaga gacmaheena ayaan isku gubin yeena dhibaato isu geysanin يعني وحوي روحه مصلحتي سهفيري انتو صندتك كلا مصلحة هذا فيرين مصلحة هذه الدنت هذا كتشرته إن هذا حبناها كنتروشه وآدمه كان نبت قالوا وإكابت بادان بل إسكبر نافه إن إكابت بادان آدمها إن هذا حترتال الرباه إن هذا حد كل أنتو طبي عد معان علمي قال الله ديرتهاي حولها إلهي كسي أف معان وجفرا طبي عد معان وحصل رأيني كابحان وآدمها أدخل معاملات لكن إن النقطة دبلي وضدك دبتا ولقى على مشكلة وين حكسوا النبي صلى الله عليه وسلم إنه يري ضدك روح دركته يا ضدكو أي كعلى عليا دي بلقى على ليه هبلة هبلة وشرلي هبلة ويدب بدن تاعي هبلة ويدبيعات حن تاعي هبلة ضدك حمتها مش اللي يسوي ما دب ضدك بي وحكي شيكتها مجالس تادي أذيك بلقى عرره
dadka muslimiinta warkaaga haya nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam markhaatiyadii ilaahay dhulka joogay waay ayaga markhaati kugu ah dadkana waxa ugu shar badan ilaahayna ugu nacib yahay ruux dadku uga carareen sharkiisa daraadii sharkiisa iyo dhibkiisa daraadii hadii lagaaga cararo oo anagu u haysan inuu ruux fiican yahay ruuxaasi waa ruuxa dadka ilaahay ugu nacib ugu shar badan waa marka بينما الروح المسلم كان لدونه إنه نبغض سيد النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يألف ولا يؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف مؤمنكو والروح دبع عد معان والروح أنبلا والروح محوء هاي دبع سن والروح لوي مادو والروح لتشعلي هاي والروح فردقي سيئ لتشوقي ديس لحيسيه لوهي لوبو والروح نوعاسة لكن الروح لقى عراريه ومجلس كيسا لقى عراريه وفحمديسا لقى عراريه يعني إيمانك صحفاسك والروح سوح كيه سيداس درادد توفيق دا الله إنه وافجيه كده داله إن شاء الله تعالى إنه نفي الشيطان لدقالنه دينتنا يا آخرتنا يا مصلحتنا إنه إلى شنه أفكيني أدينكنا إنه كأد كانه إنك إداني نوجد شرتا آخرتنا إداني نوجد شرتا أدونكنا الدنبا وجود شرتا إلهينا توفيق ده هنا وافجيه أدعو بالله توفيق صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزاك الله خيرا وبارك الله فيك واحسن الله اليك. إلهي سبحانه وتعالى شيخنا بركيه. إلهي سبحانه وتعالى المدى التوقيمة بدل الجلوس الجديدي أكاوى مريو وميزاك السنة وقدره إنك إلهي سبحانه وتعالى من وفعه إلهي من المنسيه وكل رب إلهي سبحانه وتعالى إنك إذا كنت بسيدي أيضا صباحي وحينه كذلكنا إن الشيخ أول منه قال من سؤاله أصوب وقتين سي أمرك أيضا جوابه إن شاء الله تعالى سؤاله هذه أقول إليه مصوفي لكن وحنقول فرحوني سيدا أي موضوع ممكن لويجي هي سيدا أي دوشد موضوع في خطوة أما سيدا يمكن من زين عن هذا أيام كل فرحوني ما دام هذا سوء تقلعي عندما تدخلوا الشباب وسيلك ذكر الناس وأشكرات الشيخ وحلو الدين يا سؤال موضوع هذا الشيخ وكان ذي حقيقة سؤال شيخ واحد أي الشيخ قد قال الحمد علماء waxay yiraahdaan ruuxa dambiyada muujisto banaanka ula soo baxa iyo ruuxa kaafirka ah marka la yiraahdo xagga wax sheegida xurmo male bay dhahaan laakiin dhanka kale waxa laga maarmaan ruuxu inuusan carabkiisa barin dadka wax ka sheegooda gaal ha ahaado muslim ha ahaado laana ruuxii barta inuu gaalada xanto marka dambana muslimiintu xaman doonaan marka saddan lilbaab nabigeena sallallahu alayhi wa alihi wasallam waxa sugan asagoo oo la socda saxaabadiisa ayaa ninbaa wuxuu lacnaday hal hashi markuu lacnaday nabigu wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam hashan la lacnaday na raaci mayse naga reeba يعني وحوله وأدوين سيدا استراديد مفعنا سيدا بالروحه إنه برتو أما عرب كيسا برو أما رقنا أي نقطه إنه آدمها وحكشه صح وحي أخلاق حماة هدتك واللوغة دي كرا وحي قال لما واللوغة دي كرا وحي دين حماة واللوغة دي كرا تا إيضا وحويان ويبنان تاهي لكن آدمها إنا تكون مشغوش عيبيه سا wax macno ay leedahay heeweerata ma jirto wallahu a'lam jazakallahu khayran wa barakallahu fiik sa'ilka labaad wuxuu leeyahay sheekh qofka jira andhow jeer isku dhacnay haddana waa nabashiinaa haddana waa isku dhacnaa in meelaha ayaga haddana waa layga soo sheegeeyaa qofka haba xiriirka uma u jaraa oo aan ka raaxaystaa saasaa su-aasha loo soo qoro
النبي يقول صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 روح مسلمة ومبنانا إنه ولالكي كقويو أو كهاجرو سدح بري كبدا وكل ما يانكل تشيت سنيا وحنا الله وضع خير بدن مدكودي سلامته بالله روح مسلم كأ وحال قوين كرا وهذا الكلاجة قوسن كرا يحرير كا عدي مصلحة كوتشرت مصلحة قورمي كوتشري كرتا مصلحة وحي نقوم كرتا قوين تأد قوين يسو أيا إستجا مصلحة كوتشرتا يو قوين هذا وحي يكون نقول يسا بريشر وحي بمركز دينيا والروح مثلا هو يو كله عدادس بكوكوسا مثل كأموسي أبو كله روح مجع كوله صاحبه كله هذا سلاد الروحاني هداد جويس وحن وتشوتشيني وإستجا مركز مصلحة وجرتها ولا جوين كرا أما ما هي أديكي بقى واحد كبق قيسا إنه عذر كيسا كوكو دارته وحرير كارد حرير اسكو حرنانتا اسكو حرنتي واحد كيا ويسا إنه عذر كيسا الله قادت أو كوقات سيو لفها قادو بقيسا إن أدمرك أدوه إلى شنات مصلحة هذا أيادو جوينيسا هذين مصلحة كتيرين أسجي جوين تادو ما أنفعيس وحبكم مديني أديجينا كم بقيسيدين ودبكاسو قارو مركا واحد حريرين نيسا دبكيسا نوادض القادة نيسا مؤمنك ضدك كل حجرة دبكودنا أضد القادة ني أيا كخير بدن النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنك ضدك إسقى حبحي إن ضدك كل حجرته دبك كاسو قارنا أضد القادة طافيا مركا هجوينين وحي دبنا أضد القادة تسوى قدم كلامات warka lagaaga soo sheegayo marar fara badan waxba ku qaybsanin cidda walaalka warka kaaga soo sheegtay waa faasiqna ilaahay wuxuu yiri ya ayyuha alladhina aamanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu haduu ruux faasiq war idin keeno iska hubiya markaaba ha rumaysanina ruuxa dadka warka u kala gudbiyana waa faasiq والنمام واسكو الدردر نبي قال وحور الجنة ما قالوا سووا قبرك كو عذابنا وو أركي مركا فاسق ورء كوسو قد بيحبها كو قيب سنين وحدعي كريسا هذا الكسيدو إنو سنشيرين وادعي كرتا إنو تشير لكن سيدي لو يريو أن لغوكوسو قد بينين وادعي كرتا ساس ترادد وربا الله إيقا الشيغي وحبها كو قيب سنين wixii aad hubsatana walaalka way u dulqaado oo ha goynin goyntu waa xaalad yaani muxuu ahay aakhiru dawa alkaywa daawada markii ruuxa wax kasta laga la quusto marka ugu reesto waa la gubaa dabku waa daawada ugu dambaysa goynta ruuxa aad goynayso waa daawada ugu dambaysa mooy markii wax kale oo laga quusto ayaa la isticmaalaa naam jazakallahu khayran wa barakallahu fiik سؤال الكتاب قد صور يوحى وليه شيخنا بشيخ الله سوره كل روحي يشهيا قفقا كور المسيح على ثم علمتي مالي رمضان حديثة عن سيدنا وقت به سوغانيا ومسألة خلافية علماء المسلمين ذاتك قال ذا بشهر رمضان cuntada ay cunayaan ma loogu kaalmayn karaa ma la siin karaa haday iyagu iska cunayaan loo diidi maayo laakiin ma loogu kaalmayn karaa waa arin ay culimadu isku khilaafsiin mas'ala waxay salka ku haysaa usuuli oo khilaafiya iyada lafteeda masalada wixii culimadu ka yiraahdeen marka la daba galo تقريبا والله أعلم سيدا إلى الرجحاني وحويان إنينا وحد باتا لهين ما دام أي قاليهين انتظر الله سينا يو أما وادد بدنو كمبيني كاقاي بكا شقيان أما قريقاي كاقا شقيان انتدي قريقا تالي إني كرسدان إني عنان إن لو ديدا ما اسكا عنان هذه واحد بيكاسو قاري ما إن شاء الله تعالى نعم